waxaa jira dhibaatooyin badan oo lagala kulmo caanimada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel walba dunida aad ka joogtaan. Dhibaatada ugu weyn ee caanimada waa qarinta xogtaada. Qof walba wuxuu la socdaa noloshaada, halka aad ku nooshahay iyo halka aad u socoto. haddii dib uu ku soo gaaro ama aad samayso wax ceeb ah, waxaad tahay qofka ugu horreeya ee la ogaado. xitaa haddii ay 10 qof wax isla samayso, qofka caanka ah waa kan qaladka oo dhan la saaro, waxaana fudud in laga arguto haddii la arko maadaama ay dadka oo dhan wada garanayaan. qofka caanka ma samayn karo waxyaabo badan oo dadka caadiga ah ay samayn karaan. tusaale, haddii qof caan ah suuqa uu soo aado si uu uga adeegto, dad badan waxay ku wariiriyaan sawir nala gal, mana diidi karo maadaama ay yihiin taageeradiisa. qaar badan way caayaan, way ku dhaga hadlaan, qaarna waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan, halka qofka caadiga ah aysan jirin cid ku mashquulaysa. markii aad caan noqoto, waxaad yeelanaysaa saaxiibo badan. inta badan saaxiibadaas ma ahan kuwa dhab ah, dhammaantood waxay fiirsanayaan dantooda. wax walba waxay noqonayaan qaali, jiifka, cuntada iyo socodka, mana jirto cid ku rabta haddii aad weydo lacag. ugu dambayntii, muuqaalkii hore waxaa uga hadalnay faa'iidada ay leedahay caanimada, kanna waxaan ku sheegnay dhibaatada ka dhalan karta. haddaba diyaar ma u tahay inaad noqoto faamoos? waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. channelka subscribe saar si aad ula socoto. mahadsanid.